Asalaamu calaykum daawade. Halkani waa xogta qarsoon. Muuqaalkani waxaan kaga hadli doonaa nin Soomaali oo arrin argagax ku abuurtay bulshada Soomaaliyeed ka bilaabay waddanka Sweden. Waxa uu ololeynayaa in la joojiyo gudniinka raga. Maxaa ku kalifay arrintani argagaxa sidee bulshada u aragtay? Muuqaalkani ayaan ku soo koobayaa daawade. Haddii ay tahay markii ugu horreysay xogta qarsoon oo ku soo gaaro daawade magacaygu waa Yaxya Maxamuud Maxamed. Muuqaalkani waxaan kaa codsanayaa inaad share garayso, like garayso, sidoo kale channelka subscribe aad saarto. Hagaag nin Soomaali ah oo ka sharaxan waddanka Sweden ayaa u ololeynaya inuu joojiyo gudniinka raga. Xasbunallah. ninkan oo ka tirsan kana sharaxan xisbiga Center Party ayaa Soomaalida iyo dadka laga tira badan yahay ee raadinaya codadka waxa ka qeyliyay dadka Yuhuudda oo iyagana sida Islaamka isu guda dhamaantood waa ay wada cambaareeyeen. xisbiga Center oo ninkani xubin uu ka yahay ayaa sanadkii 2019 qaatay go'aanka gudniinka raga. dadka Yuhuudda oo awood ku leh siyaasadda Sweden iyo muslimiinta oo isgarabsanaya ayaa go'aanka xisbiga cambaareeyay. walow toddobaadkan qayb ka mid ah xisbigu sheegay in go'aanka xisbiga intiisa badan diiday kadib markii loo eegay sida ay idaacadda Sweden u sheegay Xamse Cumar oo isna Soomaali kale oo xisbiga ku jira. dhowr sano ka hor ayay ahayd markii waddanka Norway ee la dariska waddanka Sweden uu sheegay in odayaasha ragga markay gaboobaan bakteeriya ay ka dhalato xubintooda taranka. sidaas awgeedna ay wacan tahay in dhalinyarada qofkii doonaya inuu isgudo haddii rabo caafimaad uu iska dhaafo inta aanay duqoobin. dhanka kale waxaad xasuusataan go'aankii madaxweynaha South Sudan Salva Kiir Mayardit uu sanadkan ku sheegay in qasab ay tahay in waddankiisa uu gudayo dad ka badan 1 milyan oo rag ah kuna jira xaalad caafimaad oo halis ah kadib markii AIDS-ka dalkaas si faraba'an uu saameeyay. ninkani Soomaaliga ah ayaa waxa arintiisa ay halis ku abuurtay bulshada Soomaaliyeed. Maxamuud Faarax oo olole ka ah ama u tartamaya kuraasta xisbiga Center Party ee dalka Sweden waxa uu doonayaa in qof kasta oo dalkaas u dhashay aan la gudin sabab la xiriirta in gudniinka xisbigiisa ay u arkaan wax xun. sidaa daraadeed waxa uu soo jeediyay inaan cidna la gudin. waraysi uu siiyay telefishinada waxa uu ka sheegay in arintaas ay tahay wax laga xumaado, sidaa daraadeed uusan doonaynin xilligan qof la gudo. shacab Soomaaliyeed ayaa si badan baraha bulshada kaga falceliyay waxaana ay su'aalaha dadka weydiinayeen kamid ah isagoo miyuu beejo qabaa mise waa la guday. su'aalaha kale waxaa kamid ah marka haddii ragga ma loo soo degsaday waa Soomaali halawday dadka hadda jooga caqligii laba lugood dhexdooda ayuu ka galaayo qof kale yiri. dadka qaarkood waxay sheegeen in arintan ay tahay wax lagu xumaado. kani waa nacas jaahil ah oo cilmi diineed iyo saynis doonaan waxba ka garanayn. gudniinka raga caafimaadkooda ayuu muhiim u yahay. gaaladii baa ku faraxsan waa arintaas in la gudo raga isagana waa uu diidayaa. waa nacas ay dadka qaarkood arintani kaga falceliyeen. Maxamed Faarax waxa uu doonayaa in aysan dhicin gudniin dambe oo raga loo geysto. su'aasha isweydiinta mudan ilaa iyo haatan ayaa la baarin waxay tahay halkee ayuu isaga ku dhashay, ma Soomaaliya mise Sweden? sidoo kale isaga miyuu gudan yahay mise? waa su'aal dadka badan isweydiinayaan balse jawaabtoona looma hayo. xisbigiisa arintani waxay kula kulmeen cambaareen badan. Yuhuudda oo aanan haysan diin xitaa ah diintooda midda ugu xun ee dunida la qaato ayaa waxa ay dadka Islaamka ah kula safteen in aysan dhici karin in qof nin rag ah oo weyn aan la gudin uu socdo. waxaana Yuhuudda ay sheegeen in arintaas ay tahay wax xun caafimaadkoodana halis u yahay. muslimiintana waxay sheegeen in ay tahay diintooda mid aan ogolaaneyn in qof ka yar 15 sano aanu gudnayn. sidaas daraadeed muslimiinta dalka Sweden iyo sidoo kale dadka Yuhuudda ee dalkaas ku nool ayaa carro xoogan ka dhiibtay xisbiga Center Party ee dalkaas ololaha ka wada. Sweden waa mid ka mid ah dalalka Soomaalida ay ku badan yihiin. dad Soomaaliyeed oo dalkaas ku suganna waxay sheegeen in dhaqamada xunxun qaarkood dadka Soomaalida ay ka keenaan ayagoo ku faafa guud ahaan dhaqamada dalkaas ay ku nool yihiin xilligaas. arintani
naxdin ayay ku abuurtay bulshada dalka Sweden ee Soomaalida waxaana aanan jirin in waalidiinta ay ka hadlaan arrintan sida muuqata madaxweynaha South Sudan Salva Kiir Mayardit kol hore waxa uu sheegay in qasab ay tahay in wadanku uu gudo dad ka badan 1 milyan oo rag ah waxaana sababta uu ku sababay tahay in xaalad caafimaad oo halis ay ku jiraan dalkaas waxa saameyn baan ku yeeshay cudurka aafada HIV/AIDS taas oo loo aaneeyay gudniinka dadka reer South Sudan si looga hortago arrintaas madaxweynaha dalkaas waxa uu sheegay in qasab ay tahay in la cirib tiro dadka aan gudnayn arrintani iyo kuwa kale halis leh ayaa ka dhacay guud ahaan caalamka balse mid la yaab kale ayaa ah in nin Soomaali ah oo muslim ah uu ku fikiro in qof rag aan la gudin daawade arrintani kaliya xitaa muslimiintu ma aanay diidin yahuuda oo aad u neceb diinta islaamka iyo xeerarkeeda ayaa ka biyo diiday muslimiintana kula garab saftay in arrintan ay ka hortagaan wadanka Norway oo daris la ah Sweden odayaasha ragga markay gaboobaan waxa lagu tilmaamaa in bakteeriya ay ku dhalato xubintooda sababtuna ay ugu wacan tahay in qofka dhalinyarada doonaya inuu isgudo haddii caafimaad uu rabo marka uu weynaado taas ayaa ah mid kale oo ku dhiirigelinaysa in aan la ogolaan gudniinka Norway waxay aaminsan tahay in odayaasha xilligan bakteeriyada xubintooda leh sabab ay u tahay gudniin la'aanta maadaama laga qaado cudurro badan oo halis ku ah caafimaadka qofka taasi waxa ay keentay in halis badan iyo caafimaad darro badan laga dareemo guud ahaan dalkaas sidaa daraadeed Norway waxay soo jeedisay in la gudo qof walba oo dhalinyaradaas si markay gaboobaan caafimaad badan ay u hesho xubintooda taranka Sweden hadda xisbigaas ayaa u ololeynaya in gudniinka la joojiyo waxaase la yaab leh oo hore waxa la arki jiray gudniinka dumarka haddase waa gudniinka ragga oo dadka badankooda ay ka hadlayaan muuqaalkeeni koobna daawada waa naga intaas nabadgelyo